بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. الحقيقة مرتبة وحي أورانيسا adaa doontayee daawadda adkay faroolaa wuxuu ka bixi la'yahay miidyaha. sababtuu uga bixi waayena waxa weeye kow xaqdarradii uu birboosgareeyey inay Soomaaliya aqal sare yeelato waa qodobka labaad waa xaqdarradii lagu qaybiyey 54 ayaa ka hadal siinaysa. ra'yigayga caafimaadka qaba waxaan qabaa aqalka sareba inuu yahay xaaraan. maxaa yeelay wuxuu caddeeyey garoowato in fikradda lagu heshiiyey, laakiin tirada iyo aqal sare ayay ku ekay. kolkii uu madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed xukunka ka dhigay ee uu soo fuulay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dabadeed aqalka sare xubnihiisa oo sharci darro lagu qaybsaday, dabadeedna ay dhaarteen, dabadeedna sidaa ay ku noqdeen aqalkii sare. aqalka saraan haddaba idiin sheegayaa sida uu kala yahay. 17 xildhibaan faroole, Cumar Cabdirashiid, Cabdiweli ha la weydiiyo sidii loo qaybiyey. 14 wuxuu yidhi saaka Somaliland baa qaadatay warbalkaalaya. 13 haddana wuxuu yidhi koonfurta wixii gaalkacaya ka shisheeyaa qaatay. waayahay 8 xubnood waxa qaatay buu yidhi meesha la yiraahdo Baydhaba. waayahay 2 xubnoodna waxa qaatay buu yidhi beesha shanaad. mar wuxuu sheegayaa gobol baa lagu qaybiyey oo min 3 mar wuxuu sheegayaa dawlad goboleedyo, marba waxbuu sheegayaa. habaaxaadegooy shiikhu waa balanbalkiisiiya. xaqdarro ayuu ku dhisan yahay aqalka sare. kolkaad aragto dastuurka oo akhrido wax awoodi uguma taal aan ahayn aqal sare iyo 18 gobol ah waxbuu la baxsanayay. alxaqiiqa qodobkaa intaasaan ku dhaafaya. 2 dastuurka marka la akhriyo oo dee dadkan Soomaalida oral society-ga ahi hadday dastuurka akhriyaan way garanayaan wuxuu inuu gebigiisuba ku aasaasmay sidee baa Maxamuud Saleebaan siyaasiyiintoodu ay kuraas badan u helaan. naqshaddu waa 1960kii markii ay ka soo galeen Jamaame, markii ay ka soo galeen Xudur, markii ay ka soo galeen Jalalaqsi. war waxa oo dhan miyaga ma deegaanba uma aha. kuraastii waagaa unbay daba joogaan, dabadeedna hadba sibay u dhigayaan. waxayna mar walba ka faa'iidaysanayeen Prime Ministerka ayaa wuxuu ka soo jeeday siyaasiyiinta Maxamuud Saleebaan. qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa.
waxa ku jira heshiisyada garoowe 1 iyo garoowe 2 in waxbarashada 30% ay Puntland yeelato min ayna laka hada war xagaad ka keenteen waa loo sii daayay oo waa yeesheen wasiir Juxe oo waxbarashada ahaa wuxuu yiri badan 2 kursi bay heshay arday lascaanoodna 5 waana 200 oo arday war intii kale meeday waxyaabaha Juxe uu sameeyay qofna ma samayn waa sababta keentay markii goodax uu wasaaradda qabsaday dawladda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu yiraahdo Soomaaliya waa inay hal manhaj yeelataa imtixaankana waa in meel lagu qaadaa maxaa waa diideen maxay u diideen waxay u diideen waxbarashada Puntland baa lacaga waxna hadda ardaydu ma barato waayo qaar fara badan oo halka yimi oo imtixaan galay baa dhacay qodobkaana intaasaan ku dhaafaya sad bursiinyo wax badan baan idiin sheegay waa nin wixiisii doonaya iyo nin sad bursiinyo doonaya iyo nin wixiisii maqan yihiin waxa ay rabaan waa sad bursiinyo way allaaween 2020 in lagu jiro way allaaween dadku inaanay 60kii ahayn way allaaween raggii siyaasiyiinta ahaa ee 60kii noolaa ee Maxamuud Saleebaan waxna way qaadan jireen waxna waa sii deyn jireen laakiin kuwani calooshii iyo mindhicirkii iyo madaxii iyo majihii wax ay dhaafayaan male alxaqiiqa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaa maalin daran hadday jirto maalin ka sii daran baa jirta waa waxa ay maanta la baaxaadigayaan 13 kursi baarlamaankaasaa aqlabiyad saaxiqa ku ansixiyey waa matalaadii xamar guusheeda muxuu u qaatay Farmaajo weeye dagaalku kamana shisheeyo kamana sokeeyo xalay waxaan maqlayay sool iyo sanaag waxa laga siiyo 13 xubnood oo maxaa idinka galay kuwii aad qaybiseen ee sool iyo sanaag lahaayeen xaggaad geyseen ma kaambeen baad ku gasheen ma sooriyaad u bixiseen ma gabaati baad u bixiseen maxaad u bixiseen aaway kuraastay goboladaasi lahaayeen wuxuu saaka BBC-da ka yiri gobolaanu ku qaybinay haddana wuxuu yiri dawlad goboleedyadii bay naga hoos galeen waa khiyaamo qodobkaana intaas ayaa ku dhaafaya gabal baas ma u dhacay reerihii damaca waala Soomaaliya way aragtay damacooda waana tan keentay inaanay gudiyada baarlamaanka aanay xabad ku lahayn waa ta keentay markay isu taageen doorashadii aqalka sare inay waayaan war isuma hayaan waxa Soomaaliya ay u qabto warba isuma hayaan Soomaaliya 60kii waqooyi iyo koonfur baa dawladdu ku dhisatay sidaasay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ku noqotay warhoy midkaaha allaawinina ninka xaqdarra ka cabanayo iqra nafsak adigu is akhri xaqdarrada aad wadato dawladda Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Council of Ministerska 3 xubnood bay ku leeyihiin why aw kuraastii harti waqooyi maxay dadka dheeriyeen gebagebo
soomaali idin aragtay hal rajaa idiin hadhay rajadu waxaa weeye waannu goosannay waxaannu ku darsannay suuqadara iyo idinkoo imaaraadka u yeedha tala kale oo idiin hadhsan ma jirto haddii goolasha ay kaa fara bataan oo lagugu dhaliyo waad mooraal jabtaa cayaarta dib u baandheeya tababare wanaagsanna keensada cayaartooydana rehabilitation ha lagu sameeyo intaas ayaan leeyahay faroole cabdiweli siciidani iyo cumar cabdirashiid الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين